السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسيgeenu hore purchase order baan soo sameynay. Marka darsigeenu waxaanu agaabtii aynu diranay baa la inoo keenay. Marka agaabtii aynu qabanayna. Agaabta laba soo baan u qabanaynaa saynu sheegnay. Mar vendorku wuxuu ku soo raaciyay biilkii iyo agaabtii oo isla socdo ku keenay. Marna wuxuu ku keenay agaabtii oo bila biil ah. Bal marka agaabta oo bila biil ah marka hore aynu qabanno oo kadib baan ku keeni doonaa biilkii ku soo raacin doonaa buudi. marka waxaynu soo dooraynaa vendorkii agaabta noo keenay bal kan hore aan doorano wuxuu yiri open purchase order baa jiray ee matiiba doonaysa inaad aad si receive garaysid agaabtii kuugu maqnayd purchase order ka haadhe mise ku kala hadad ku kala doonayso noo waad leedahay halkan wuxuu kuugu soo taxayaa inta purchase order ee meesha ku taalay iyagoo fara badan hadii jiraan marka okay baad leedahay markaad okay tidaahdid waa tig markaas aragtid okay leedahay halkan buu kugu soo qorayaa marka isagoo dhameystiran meeshan wixii gelinay 60 xabaan diranay inta bay noqotay amount-kii marka halkan hadda arkaysid waxa kugu qoran item receipt item bal meesha la helay haday jiraan biilkii oo maarta marka la socday insha Allah meel kan gali doona halka ba check siinaysa saab isu bedelaysa laakiin tan waxaan leenahay biil lama soconin baynu leenahay halkan hoose meemada isaga ku galiyo wuxuu ku yiri item baa hesha biilkii laakiin soo socda date-ka taariikhda aad agaabta qabataad gelinaysa reference number haduu jiro waad gelinaysa total kan isaga isku ka dhuftay oo cost-gii iyo quantity-gii soo ka dhuftay oo marka halkan kugu dhuftay xagga sare waa kuween soo aragnay haddaad imika midalan tan oo kale ku jadiida tan oo kale waxa ka dhigan tahay haddaad soo doortay purchase order aadan u baahnayn ama mid kala doonaysa inaad ku soo darsato wixii oo dhan hadday doonaysa halkan ma ku dhufanaysaa tii kugu celinaya imika soo dooranay haddaad doonaysa iskaga soo bedesho ama kuwa kale ku soo darsataan halkan ma ka waxaynaysaa marka okay calculate-kana iyadu waxa ka dhigan tahay hadday imika midalan kuwa halkan kuwa far badan oo kale intaynu keeno in wax ka bedelo calculate markaan ku sameeyno wuxuu noo sameeyaa totalka iyo amount-ga buu marka isugu keen simaya marka halkan wax ka bedesho midalan quantity ama cost-ga ama halka si isugu kay dib isugu kay calculate kale kadib buu marka labadaas totalka iyo amount-ga ku sameeyaa okay haddii jiraan customer aad ku sii ship gareynayso u sii dirayso imika wali meena anagu wax customer soo gashanay laakiin mar alla markaynu customer soo gashanay xagga list-goodii baan soo gali doona halka waad ku dhufanaysaa halkan isaga marka tick buu ku saarayo people buu ku leeyahay marka inta ku soo dhaaf marka agaabtaas waxaanu leenahay agaabtan maanta waynu qabanay safe and closed bal marka intaynaan u gelin biilkii baynu gelinayna intaynaan biilka gelinin aan eegno itemskeeni waxaynu soo qabanay wuxuu ahaa wixii cables baa laynoo keenay 60 cable halka markaas uu dhufto ka 60 cable baa loo keenay okay waxa kale oo isbedelaya haddaad xasuusataan maraan idin oran jiray chart of account markaan soconay accounts payable baa jiro oo adiga lacagaha lagu leeyahay oon idin oran jiray uma baahnid inaad gelisid isaga ku gelin doono mar alla marka aad sida u sameeysid biilka aad u gelisid oo kale ama aad agaabta u qabatid bal aan eegno inuu noo geliyay iyo lacagta okay accounts payable lacagtiina lagu lahaa ee agaabtii imika 60kii aan soo qaadanay 1200 imika soo gelinay baa intuu noo abuuray waliba account-kiigu haddana halka lacagta diinta noo geliyay marka aynu lacagtan iska bixino account-kani uu banaanaan doona oo cid noqon doona okay intaan inaad fahantaan ma rajeynay haddaba agaabtaas marka iyadoo bila biil ay noqon wali biilkeedii ma inaan leeynoo keenin okay biilkeedii ba haddana kadibna loo soo diray biilkii baan helaynaa marka waxaan leenahay agaabta aad biilkeeda qabanaysa yaad ka qabatay ninka maan leenahay agaabta ninka baa noo keenay haddaad doonaysa inaad ka dhigto item receipt-ka date-keeda haddaad doonaysa biilka date-kiisa inaad ka dhigto halka clip ku siinaysa waad ku dhufanaysaa marka taa marka saa u dhufato wuxuu ku soo baxayaa marka biil halkii yar tii aynu markii sheegaynay uu tigti ku saaraya sababtoo tahay biilkii waad heshay ka dhigantay address-kiisii hadday terms jiraan terms-kan insha Allah waynu qaadanaynaa iyadoo maartay terms-ka sida loo sameeyo amount due-gii waa intii aan imika accounts payable ku soo arkaynay taariikhda iyo wixii intii aynu buuxinay oo dhameystiran way intii xataa purchase order number-kiisii oo isaguna xaga kugu qoran marka agaabtan biilkeedii agaabtii oo hor u qaadnay biilkeedii oo kan haday memo ay jiraan oo leedahay agaabtii nooca ahayd 60kii cable biilkeedii waan qaaday iyadana purchase order ka taad leedahay laftiisa itus ki purchase aan ku soo sameeyay agaabtan waa lagu tusinayaa waxa waliba lagu leeyahay
received in full agaabtan iyadoo dhammaystiran baa la wala aqbalay imika in full waxa ka dhigan tahay halkan hadaynu leenahay markii aynu leenahay yaa la wala keenay markii hadaynu halkan yiraahdo 30 baynu helay agaabtaas nus baad hesho oran laha marka sida u buuxino ay sida u dhamaystirnaato baad adigu save close baad leeyahay marka agaabtan naga xid waxa lagu yiri waxa transaction baad ku bedeshay haade tan yeeste okay marka waxaan sameeynay purchase order baan dalbanay agaabtii baan loo keenay oo bilaabila agaabtii biilkeedii waan gelin ka warna agaabtii iyadoo macal biilkeedii wada taartiin loo keenay okay receive inventory with bill baad leedahay agaabta biilkeed wadata yaa ku keenay agaabtan hadaa xasuutaan purchase order baa qof kale noogu maqnaa oo ninkan baa noogu maqnayd wuxuu leeyahay ninka agaab purchase order baa kugu maqnaa ma tiiba doonaysaa haade halkii sidii aan dariiqadii u haday badan yihiin purchase order numberkeeda mar walba isaga tartiib ugu wadaya okay iyaduna waa sidii oo kale amaankii iyo intii wixii oo dhan intaan soo aragnay marka sidan baad ku save garanaysaa waxaad leedahay macal biilkeedii iyo agaabtii way iswadatay marka save close marka saddexda dariiqan soo fahnay marka purchase order baan soo sameynay receive item iyadoo biilkii wadata iyadoo bilaabila markay biilka ahayd markii daba biilkana loo keenay halka ma ka xareynay marka lacagahana lagu leeyahay iska bixinayna lacagahana lagu leeyahay bal hadda imika intayna lacagta bixinin aynu hadana ku laabano reportskeeni waxa isbedelay imika balance sheetkeena hadaynu ku laabano waxa ku soo biiray account la yiraahdo accounts payable oo lacagtan ku sheeg 1200 nin baan ugu lahaa inta kale soo hadhayna ninkii tan baan ugu lahaa okay accounts payable ka imika markaynu lacagtan bixino waxaan doonaynaa inuu meesha ka baxo kabigiisuba oo lacagtaana lagu lahaanin lacagtan waxaynu ka bixinaynaa midaan ba savingkeeda inta baan ugu jira dahabshiil baynu ka bixinaynaa halka dahabshiil konton baan waxaan ugu jira 10 baan ugu jira halka aan ka bixinaa halkaasna waa inuu yaraato in doonayna okay haddaad eegto halkii kale profit and loss ki iyadu wali wax khasaara iyo wax faa'iido aan wali ma dhicin marka iyadu halka bay iska ahaanaysa tan naga xid marka inta awaadan doonay intaana ka bixin iyadana accounts payable ka intaan soo ogaanay halkan lafteeda inaad ka ogaatid inta lagu leeyahay 1600 baa lagu leeyahay tan iska xid marka lacagtana bixino paybill marka tidaahdid laba nin baa lacag nagu lahaa nini wuxuu nagu lahaa intaaba nagu lahaa 1200 ninna wuxuu nagu lahaa 400 iyo 1600 baa nagu lahaa hadda doonaysid waqtigaas lacagihii biilalkii lagu lahaa oo kale waa dooranaysaa hadda doonaysid inaad oo biilasho dhan tusna leedahay biilasho dhan tus baad leedahay hadda doonaysid in lagu filter gareeyo by vendor space waa dooran karaysaa iyadan oo yaani halkan sida kuwa lagu soo bandhigi lahaa kuwaas la shaqeynaya okay marka hadda doonaysid inaad biilka laftiisa tagtid toos buu ku geenayaa hadda halka ku dhufto go biil tira biilka laftiisu midka dooranaysa imkan tan bakana ku saaran kan igeebad hadda doonto kana ku saaran kaaga qaad kan igeeb toos buu ku geenayaa haduu discount jiray waan eegi doonaa sida discount loo sameeyo haduu credit jiray ama lacag laga daayay ama agaab baba qayb celisay iyadana waan eegi doonaa sida shaqeeyo iyadana halkan baad labada ka gelinaysaa imika ma jiraan number of credits ma jiraan termsna ma jiraan terms qofkan discount noogu sameeyo imika ma jiraan waan sameeynayna payment date marka lacagta bixinaysid dariiqada ku bixinaysid ma check ba mise credit hadda doonaysid in lagu soo print gareeyo halka baad iyadana tigtaas inaysa halkan account noo dooran waa cash balance-geenu yani waxba kuma jiraan oo imika saalkaas waxa ka dhigan tahay yani minuska halka ka muuqda waxa ka dhigan tahay waa 0 1200 buu marka deyn ahaan meesha u saaraya 1600 hadda ku wala tartabo marka waxaan leenahay kan kama bixinayna kama ka bixinayna wuxuu ku leeyahay yani inaad default u soo dooran karto soo moogid haabaan leenahay iska daa marka inta baan noogu soo haray markaan lacagta bixino markii hore 10 kuma noogu jirtay markaan 1600 ka bixino 8400 baan noo soo haraysa noogu soo haraysa konkeen okay da markaan lacagta naga bixi gibi sidee tahay baan naga wala bixi hay ma biilal kala sii bixinaysaa mise waa jeeg kan baad print garaysanaysaa mise sheekada waa dhan weertan baan leenahay sheekada aan dhameynay okay marka balan ayna accounts payable kan waxa sheekada isbedesha accounts payable kan waa 0 lacagtan wala bixinay haddaad reportski tagtid oo balance sheet-ki tagtid balance sheet-ki iyadana ma jiraan lacagtaas iyadoo iska bixinay haddaad fiiriso agaabteeni oo
cableski 60 kiiba waan haynaa waxaa kaloon dalbanay ahayd 20 kan baan dalbanay keyboardadaas 20 kan oo loo keenay marka maanta darsigeenu inta hanoo joogo. Assalaamu calaykum.